ربعانا برحمادي كودا أدات وني نفترى حديثها السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada bulshooyinka Soomaaliyeed meel ka soo doonay dacaladeed ka joogtaan oo walaalkeen Ibrahim Nuur Sagaale oo taqaanaan abwaan Sagaale Chikay. Saabay maanta waxaan idin wadaa barnaamijkeeni ahaa baradalkaaga hooyo qaybtii afraad. qaybta afraad waxaan maanta kaga hadlaynaa badaha mara dalkeena hooyo. dalkeena hooyo bada ayaa mara. Alxamdulillah waxaa jira dalal badan oo aan bad lahayn. sida awgeed dalkeena hooyo bada ayaa mara. badaha mara ayaa maanta halkan ku soo qaadanaynaa. intaan barnaamijka gudaha galin waxaan naga xasuusinaa fadlan channelka hadda ku cusubtay subscribe saar gambaleelkana furo si markasta barnaamijyada aan soo gelino aad si toos ah ugu daawatid. haddaad awal ugu jirtayna channelkana like saar video share gareena aad iyo aad baad mahadsantiin. okay dalkeena Soomaaliya waxaa mara laba badood oo kala ah badda cas iyo badweynta Hindiya. waana dal ay dhamaantiis ku dheerarsan tahay bad marka laga soo bilaabo cirifka koonfureed ee Ras Kamboni ilaa cirifka waqooyi ee Ras Asayr magaalooyinka dhaca xeebaha waxa ugu caansan Kismaayo, Baraawe, Marka, Muqdisho, Hobyo, Bandarbayla, isku shuban, Boosaaso, Alula, Berbera iyo Sayla ayaa ugu caansan. marka intaasoo meel intaasoo deegaan aan sheegayno badaha ayaa mara dalkeena hooyo badaha ku dheereeran ayaa mara. sidaad u jeedaan halkan magaalooyinkii badankoodba waa wada marsan. haddana cirifka Ras Kamboni ilaa cirifka Ras Asayrna waa wada bad. ilaahay baa mahad iskale barwaaqaan haysanaa. okay sidoo kale webiyo ayaa mara dalkeena hooyo. webiyada dalkeena mara ayaan maanta iyagana laftikooda wax idinka taabanaya. dalka Soomaaliya waxaa mara laba webi oo kala ah Jubba iyo Shabeelle. waxayna ka yimaadaan dalka Itoobiya waxaana ugu dheer webiga Shabeelle oo dhererkiisu uu gaaro 150 kilomitir 1500 kilomitir dheh ayuu gaaraa. okay sidoo kale waxaase ugu weyn uguna biyo badan webiga Jubba oo dhererkiisu gaaro 800 kilomitir. magaalooyinka ay dalka ka maraan haddaan soo qaadan webiyada Shabeelle ama anqaar ka xusno kamid ah wuxuu dalku ka soo galaa xadka uu gobolka Hiiraan leeyahay dalka Itoobiya waa webiga Shabeelle. okay sidoo kale meel u dhow magaalada Feerfeer ayuu ka soo dhacaa. wuxuu soo maraa magaalooyinka Beledweyne, Buulaburde, Jawhar, Balcad, Afgooye, Janaale. wuxuuna ku dhamaadaa meesha la yiraahdo Baytubaako ayuu webigan Shabeelle ku dhamaada oo u dhaxaysa Jilib iyo meesha la yiraahdo Shalambood. webiga Jubba isagu wuxuu dalka ka soo galaa xuduudda uu gobolka Gado la leeyahay dalka Itoobiya. wuxuuna soo maraa magaalooyinka Doolow, Luuq, Baardheere, Bu'aale, Jilib iyo sidoo kale Mareerey. sidoo kale magaalada la yiraahdo Kabsuma, Jamaame. wuxuuna ku dhamaadaa oo uu badda kaga daraa meesha la yiraahdo Goobweyn oo Kismaayo jirta 25 kilomitir. webiyadan dhulkeena mara sidaan isla qeexnay waa labo iyo sidoo kale baduhuna waa labo. baduhu waa badweynta Hindiya iyo badda cas. sidoo kale webiyaduna waa labo waa webiga Jubba iyo webiga Shabeelle. waxaa kaloo naga xasuusina webiga labada webi waxaa dheer webiga Shabeelle 1500 kilomitir ayuu jiraa ayuu macnihi dhererkiisu dhan yahay halka uu Jubba yahay 800 kilomitir. markii biyo badnaan la yiraahdo waxa weyn ama balac ahaan weynna webiga Jubba oo 800 kilomitir ka. marka asxaabay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa walaalkeen Ibrahim Nuur Sagaale oo idinkaga tagaya salaanta islaamka ee aad ku qiimaha badan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنه برنامج xiga hadduu eebaydno nabad ya asxaabi.